marka dal aad aragtid in wax la isku qabsanayo halka soo dhow sababtu waxay tahay waxyaabihii oo masiiriga ah ayaa laga wada hadlayaa dood wanaagsan oo caafimaad qabtan oo loo baahan yahay laakiin marnaba dawladda goboleedyadu waxay xubnaha ka ahaa waxayna ka fiirsadaan luqadaha isticmaalayaan oo looga faa'iideysan karo annaga inaan shisheeyo oo wadankan xora inaan soo dhax gala waxa annaga xalisan in annaga waxaan xalisanayaa muhiim institutionno hay'ada capable oo awood u leh inay ka fariistaan xalkeena xalistaan xal Soomaaliya helo oo dalkan ma taqaanaa qodobadaas muhiimka aan ka wada hadli doonana madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliya soo dhaweeyay in la wada fariisto xal Soomaaliya helo laakiin marna waxyaabaha qaarka in laga fogaado fiican in la yiraahdo shisheeyna soo dhax galaan eragaas aan aad u haboonin ayuu ahaa marka runtii waxyaabo badan oo positive oo wanaag ayaa socda waxyaabo caqabado waa jiri kara caqabadahana laakiin waxaan leeyahay waxa lagu xalin karaa wax xal Soomaaliyeed weey anigu meeshan ka diidayna waxa weeye hay'adaheena dastuuriga ayaa awood u leh inay xaliyaan wax kasta oo khilaaf ah oo soo dhax gala binaadamka waxa isugu dhow Carabi iyo Ignaas qaniinaan marka dawladda xubnaha ka way ka caban karaan laakiin in anaga wixii cashadoodii inay meelay dastuuriga soo maraan madaxweynaha ayaa hadda u yeeray dowladda Soomaaliyeed inta la wada fariisto xal Soomaaliya la wada hadlo oo marka meesha dalkan u dhaqaajin lahayn waxyaabo waaweyn oo masiiri ayana sugay oo ugu weyn tahay dalkan 2020ka in doorasho hal qof hal cod ay ka dhacdo in dastuurka ku meel gaarka ah oo inta la dhameystir afti loo qaado in mataqaanaa arimaha kala guurka oo ah transition plan yiraahdaa in dalkan ciidamadeena ay la wareegaan amnigiisa waxyaabahaas waaweyn oo muhiimka ah in sharciyadaha hadda golaha shacabka waxaan hor yaala 17 in sharciyadaha hor yaala oo muhiim u ah dalkan inaan shuruucda marka inaan ku mashquulno qof walba oo shaqadii looga igmado uu qabto aanu ka jawaabno si wada jira haddaan noqon lahayn dawladda federaalka iyo haddaan noqon lahayn dawladaha xubnaha ka haba in si wada jira baahida shacabka Soomaaliyeed oo raba dawlad wanaag inaan ka wada shaqeyno oo dalkan hor u dhaqaajino taas ayaa muhiim ah waxaan aaminsanahay arimaha yararka hadda oo khilaafkan in aan xal ka gaari doono iyadoo la soo dhaxgelin hay'adaheena ayaa awood u leh waxaan rajaynaynaa waxa weeye inaan shacabka Soomaaliyeed ay helaan dawlad ay xaq u leeyahay ay haystaan oo annaguna aan ka turjino baahidooda shacabku awoodda iyaga ay ka bilaabataa dastuurkeena iyaga ay ku dhamaataa waa in marka taas marka muhiim ah inaan dhaqaajino dalkan hore u socono oo hadda muhiimaddu waxay tahay 2 sano oo waxaan hariyo bar oo waxyaabo fara badan hor yaalaan ina waxaan rajaynaynaa aan taa ku mashquulno dawladda xubnaha ka in badanna doorasho ay gali doonaan dadkaas deegaanaas degan ay u taalaa masiirkooda annagana door ayaan leenahay doorkaas waxa weeye in dalkan la isku haayo wanaagis laga shaqeeyo shaqo abuur balaaran la galo si dalka ma taqaana hore u socday walaalo ma santaa